hormuud waxaa la aasaasay 2002 ayaa waxaa isu yimid 283 shareholder oo ka tashanaya siday u sameyn lahaayeen shirkadda hormuud loogu talagalay inay ka shaqeyso Central and South Soomaaliya. maanta oo ah 2022 waa sanad guuradii 20aad ee shirkadda Hormuud Telecom oo ay ka duwan tahay maantay maalintii la aasaasay iyo maalmo badan oo ka dambeeyay. waxaan u hambalyeeynaa shacabka Soomaaliyeed ee aaminay shirkadda Hormuud adeegeeda kuna qanacsan wadada dheer ay la soo qaadeen. waan uga mahadcelinayaa, waan u hambalyeeynaa. sidoo kale waxaan u hambalyeeynaa shareholder shirkadda Hormuud ee runtii ilaahay fursad uga dhigay inay maanta taagnaadaan waaqiciga ay shirkadda Hormuud ay joogto. sidoo kale shaqaalaha Hormuud oo iyagana aan ugu hambalyeynayo wadadii dheerood ay soo mareen inay maanta halka ay taagan tahay wanaaga badan. waxaan kaloo ilaahay ka rajeynayaa shaqaalaha Hormuud, shacabka Soomaaliyeed, shareholderka Hormuud in ayagana sanad guurada 4aad insha Allah ay ku gaaraan meeshaan meel ka qurux badan. intii maanta aan la joogin ilaahay oofsadana waa u duceynayaa Allah u naxariisto.